بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa maanta inaan la wadaago shan qodob oo qofka horumarkiisa dhaqaale muhiim u ah. Qodobka koowaad wuxuu yahay ha kaydsanin wixii kuu soo hadha balse kaydso wax go'an bil kasta. Haddii aad kaydsato wixii kuu soo hadha markaad kharashaadkaaga iyo waxyaabaha bixiso yacnihii qofkaasi dhaqaalihiisu ma horumarayo. Qodobka labaad waxaad isku daydaa inaanad iibsanin wax kasta oo aan muhiim ku ahayn. kaliya waxaad iibsataa waxyaabaha muhiimka kuwa ee aanad ka maarmayn ee ma kasta laga maarmaanka. Lambar 3 lacagtaada maal gasho oo meel gey. Markaad lacagta meel gelinaysana waxaad isku daydaa inay noqoto meesha aad gelinaysaa meel wax soo celinaysa bas lacagtaada ha gelin meel aan wax u soo celinayn iyadoo wax ka qabta. Lambarka 4 marka aad doonayso inaad wax maal gashato khataraha eeg. Khataraha fiiri khataraasi hadday yihiin kuwa loo babacdhigi karo oo wax ka soo noqonayaan risk taker noqo oo qaado balse hadday yihiin kuwo aad ku khasaarayso oo aad ogtahay khasaarahaasi iyagana ha u bareerin. Qodobka ugu dambeeya waxaad isku daydaa si aad u gaadhid mar kasta dakhliga ku soo gelaya hal meel ka badnaado 2 meelood 3 meelood ilaa 4 meelood dakhli bishii ka soo galo laakiin hal meel dakhliyo ka soo gal. Haddii hal meel dakhliyo ka soo galo macnaha waxay ka dhigan tahay dhaqaale horumar ma sameynaysid xagga dhaqaalaha ama ma noqonaysid qof madax bannaan oo dhaqaale ku filan soo galiyo. Shanta qodob ayaan arkaa qofkiina muhiim u yihiin. Qodobka koowaad waxa weeyaan qofku inuu kaydsado oo bishii wax ugu talagalo laakiin uu kaydsanin wuxuu soo hara. Qodobka labaad qofku inuu iibsanin wuxuu u baahnaa. Qodobka saddexaad qofku inuu lacagta maal gashado waliba meel muhiim ah ku maal gashado. Qodobka afraad qofku khataraha uu galayo inuu ka fiirsado. Qodobka ugu dambeeya qofku inuu eego يعني دخلوا ملاك سوق قليان 2 meelood iyo 3 meelood ay noqdaan laakiin hal dakhli kaliya una sugin ma santiin